kadib markii maalintii shalay duqa degmada Boorama mudane Salebaan Xasan Xadi uu sheegay inuu furmay kala fadhigii golaha deegaanka degmada Boorama ayaa hadaba howlka dawladda hoose degmada Boorama oo maanta isugu yimaadeen 13 xildhibaan iyadoo goobtaasina ay ka maqnaayeen duqa degmada Boorama iyo 7 xildhibaan oo kale ayaa waxa uu barasaabka gobolka Awdal mudane Maxamuud Ali Salebaan Ramaax uu sheegay inuu si rasmi ah ugu furay golaha deegaanka degmada Boorama kala fadhi ay yeelanayaan kala fadhigaasi muddadii uu socday oo warbaahintu ay dibadjoog ka ahayd kadib markuu kala fadhigaasi uu soo xidhmay ayaa waxa warbaahinta ugu horreeyay kala fadhigaasi iyo ujeedooyinka laga hadlayay maayir ku-xigeenka degmada Boorama mudane Maxamed Faarax Dheereste waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxa aanu soo fadhignay ajeedayaal qowla inaan kaga doodno kamid ah asxaabta miisaaniyada fadhiga la dhaqaale iyo tacriifadaha xeeloosaadka shaqaalaha dib u eegista shaqaalaha xeeloosaadka golaha iyo xabsin xab laga helo biyaha ADP-ga ah oo guddiga soo habigto bayadawrka iyo in golaha lasoo habigo dayn dowladda hoose lagu leeyahay intaasi ayaan doonaynaa inaan kalfadhigayo isoo fadhigno oon kaga doodno barasaabka gobolka Awdal mudane Maxamuud Ali Salebaan Ramaax oo sayna goobtaasi ku sugnaa oo hadal ka soo jeediyay ayaa yiri waxa runtii maanta sharaf weyn oo ah inuu kalfadhiga si rasmi ah u furmay iyadoo ay hadda fadhiyaan 13 xildhibaan laba xildhibaan ay ku maqan yihiin xududdaar hal xildhibaan oo maayarkii oo shaqo isaguna halkiisa ugu baxay uu la socon doono shirkeedu waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xildhibaanada dhammaantood ka soo qayb galay halkan shirkuna uu socon doonaa inta maqanna waxaan ugu baaqayaa inay si degdeg ah duldaarku keenaan ama ay ka soo qayb galaan shirka si kastaba arintu haatee kala fadhigan ay maanta yeesheen golaha deegaanka ee degmada Boorama ayaa waxa uu ahaa kala fadhi waqtigii loo baahnaa dib uga dhacay iyadoo ilaa hadda ay golaha deegaanka ee degmada Boorama ay ansixin miisaaniyadii ay ku shaqayn lahaayeen iyadoo jirtay khilaaf baan oo hareeyay golaha deegaanka ee degmada Boorama iyagoo xildhibaanada qaarkoodna ay dhawaan ay ahayd markii ay soo dhigeen mooshin ka dhana maayirka iyo maayir ku-xigeenka balse mooshinkaasi ilaa hadda aan la garanaynin halka uu ku dambeeyay kala fadhiyadan ay qabsanayaan golaha deegaanka degmada Boorama ilaa hadda lama garan karo inta kala fadhiya si rasmi ay u qabsadeen iyagoo degmooyinka kale dalkan Jamhuuriyadda Soomaaliland ay kala fadhiyadooda ay marayaan 10 iyo wax ka badan.